wuxuu ku caanbaxay in gabdhaha Soomaaliyeed uu ka duubo muuqaalo galma oo qasab ah asoo isla markaasi wajigiisa qarsanaya laakiin baaris aan sameynay oo aan ku soo bandhignay wajigiisa waxay ku qasabtay in Muqdisho uu ka qaxo Nairobi uu aado halkaasi ayuu ka bilaabay hooshiisa musiibo ayaa ka raacday magaalada Nairobi kadib gabdha Soomaaliyeed oo ka duubay muuqaalo dhammaanteen waxa waajib nagu ah kooxahan wajiyadooda qarsanaya gabdhaha Soomaaliyeed ceebeynaya inaan ka hortagno dhammaantoodana aan keenno wajiyadooda saxda ah si loo ogaado wajiyada ay qarsanayaan oo gabdhaha ay ku dhibaateynayaan ogaawse gabadha muuqaalka laga duubayo waa walaasha hooyada gabadha dhashay imida aad u dhaxdid waa waajib muqaddas ah in kooxahan aan ka hortagno Cabdullaahi Xasan Cabdi musiibatii ugu weyneed ayaa Nairobi ku qabsatay muhiimse ee tahay dadka waxgalka ee Nairobi ku sugan in doorkooda waqtigan ay qaataan si degan muuqaalka u daawa qaybta dambase muuqaalada Nairobi uu ka duubay ayaa daawan doontaan Cabdullaahi Xasan Cabdi wuxuu madax u ahaa koox duubta muuqaalada kana duubta gabdhaha dhalinyarada una badan kuwa bigra oo qaarkiin laga yaabo in muuqaaladooda aad ka daawateen baraha bulshada Cabdullaahi oo deegaan ahaan degan degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir dhowr barnaamij ayaan ka sameynay asoo isla markaasi aan baahinay muuqaalada uu duubay iyo codadka taas oo keentay in gabdho badan oo uu ku sameeyay arimahaasi ay aqoonsadaan sidaasina aan ku soo bandhigno sawiradiisa iyo waliba si dadka ay u aqoonsadaan dhowr mar ayaa lagu xiray xarunta dambi baarista CID ee Muqdisho kadib markay dacweeyeen gabdho muuqaalo uu ka duubay oo qasab ah waxayna taas keentay in odayaal ka tagay dhaqankii iyo diintii ay galaan arinta ay bixiyaan laaluush dabadeed dhowr mar laga sii daayo xarunta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho handadaad uu kala kulmay gabdhaha baraha bulshada uu ku baahiyay muuqaaladooda ehladeeda iyo waliba dhinacyo kale waxay keentay Cabdullaahi Xasan Cabdi dhagarqabaha weyn inuu aado dhanka magaalada Nairobi waana halka hadda musiibada ee ka raacday doorkoodana loo baahan yahay qof walba oo waxgal ah oo ku sugan Nairobi inuu qaato doorkiisa uuna u argudo ku dhawaad 40 gabdhood in ka badan oo muuqaalo uu ka duubay una badan gabdho bigra ah oo si qasab ah uga galmoonayo dabadeedna muuqaalo badan oo hadda qaarkood aan hayno codadkiisana ay ka dhex muuqdaan ay ku jiraan baraha bulshada waa muhiim qof walba waxgal ah oo ku sugan Nairobi qisadan aan soo sheegi doono ninkan halka hadda lagu hayo in doorkooda ay ciyaaraan gaar ahaan xildhibaanka laga soo doorto xaafadda ay u badan tahay Soomaalida ee Islii mudane Yuusuf Xasan Khareenka ama abuukaataha ugu sareeya ee dalka Kenya abuukaata Axmed Naasir iyo dadka la midka ah Cabdullaahi Xasan Cabdi gabdho badan ayuu Muqdisho ku dhibaateeyay wuxuu aaday Nairobi halkaas uu isleeyahay waxa sharciga aad kaga baxsan kartaa laaluush ay bixisid sida CID ama odayaal dhaqan oo caado qaatiyaal ah in garta ay galaan dhaqankii uu ka sameeyay Muqdisho ayuu ka bilaabay magaalada Nairobi halkaas oo muuqaalo uu kaga duubay gabdho si qasab ah waxa muuqaaladaasi midkood oo liisoo diray ka dhex muuqday isla Cabdullaahi Xasan Cabdi waxaana muuqaalka duubaya qof kale oo si saaxiib la oo kaamirada u dhigay meel sariir hoosteeda waxa si kaliira oo muuqda loo arkayaa ninkii sawiradiisa aan idin soo gudbinaynay sawirkiisana hadda shaashada aad ka arkaysaan oo dhar qaawan caloosha ay la eg tahay sida kantaal oo kale isla markaana mobile nicla ku hadlaya dhar la'aana ah mobile kalena gabadha ku duubaya asigana xilligaasi waxa ku socoto duumo gabadhaasi waxay diidaysaa in dharka ay siibto wuu qasbaya wuxuu si qasab ah oo handadaad ay ku jirto uu kaga siibaya dharka waxaana ismana oga in xilligaasi dhankiisa la duubayo wuxuu u haystaa oo kaliya sidii Muqdisho uu sameyn jiray in kaligiis uu duubaya gabadha waxaana taas ay keentay in muuqaal kaliira oo cadaana la helo Cabdullaahi oo si handadaada juujub ku jira jirdilna ay ka marneen ku sameynaya gabadhan Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya waxaana gabadha la sheegay inay u dacwootay booliska waxaana hadda Cabdullaahi gacanta ugu jira booliska magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya ayadoona la hayo muuqaal asiga uu ka dhex muuqdo una galmoonayo gabar Soomaaliyeed si qasab ah
hore looma haynin muuqaaladiisa waxaa la hayo oo kaliya codadkiisa wuxuu duubi jiray oo kaliya gabdhaha uu u galmoonaya si qasab ah kuwaas oo wajiyadooda la arki jiray laakiin muuqaalkan hadda aan hayno waa mid asigii uu ka dhex muuqdo isla markaana si qarsoodi ah isla asiga laga duubo lagu gaaday taas oo loo geeyay booliska magaalada Nairobi waxaase muhiim ah ganacsatada siyaasiyiinta khareennada iyo bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan Nairobi in Cabdullaahi kiiskan hadda lagu hayo oo kaliya aan loo qabsanin gabdhaha Soomaaliyeed ee ku dhawaateeyay Muqdisho dhamaantooda kiiskooda lagu qaado magdhow laga qaado xabsi dheerna lagu xukumo maadaama waxa uu hayo uu yahay cudur gabadha ee ka qurxoon tahay ka dacyar tahay ayuu muuqaalada noocaasi ka duubaa in ka badan 40 muuqaal ayaa aniga lii soo diro Cabdullaahi uu duubay codadkiisa ay ka muuqdaan waxayna taas muujinaysaa in Cabdullaahi iyo kooxdiisa ay yihiin kuwa caadaystay dhibaateenta bahdilka lagu hayo gabdhaha Soomaaliyeed waa muhiim in gabar walbo Soomaaliyeed ay iska ilaaliso shakhsiyaadka noocan oo kala laakiin waxa Ilaahay mahadiisa hadda in gacanta booliska Nairobi uu ku jiro in kasto meesha ay tahay Afrika laakiin hadii Soomaalida Nairobi ku sugan doorkooda ay qaataan waxa adkaanaysa in Cabdullaahi uu ka baxsado gacanta sharciga ee hadda uu ku jiro noo idin soo gudbinaya muuqaalada iyo codadka waxaan dul marayaa laba gabdhood oo kamid ah kuwa uu dhibaateeyay waxa gabar kamid ah ay ii sheegtay in sababta uu dhibaateeyay ay tahay oo kali ah yar ay diiday inuu siiyay lacag $100 ah dabadeedna si qasab ah oo handadaada markuu shukaansaday kadib uu muuqaal uu kaga duubay xoog ah bistooladna madaxa uu ka saaray gaari dhaxliisa ah waxaana dabadeed ay bixisay lacag aad u tiro badan waxaana taas ay keentay inuusan lacagahaasi uu qaato dabadeedna muuqaalkeeda uu shaaciyo gabar kale oo mid kamid ah fanaaniinta Muqdisho kol hore heesay la soo jishay wuxuu u sameeyay meher beenaad dabadeedna wuxuu ka duubay muuqaal handadaad ah ayadoona xilliga muuqaalka uu ka duubayay bistoolad madaxa uu ka saaray wuxuu sidoo kale gabar kale oo reer Muqdisho uu ku sameeyay midan fanaanka la soo heystay dhacdadii uu ku sameeyay mid la mid ah waana shakhsi dhibaateeyay gabdho badan oo Soomaaliyeed waase muhiim gabdhaha inay ogaadaan qofka beenta u sheegay iyo qofka runta u sheegay inay kala bartaan shakhsigan iyo kuwa la midka waxay ku qaraabtaan inay ka yimaadeen dibadaha inay u shaqeeyaan dawladda inay yihiin ganacsato iyo waxaan jirin oo been ah dabadeed markay sidaasi gabdhaha ay u soo xirigeliyaan waxay ku sameeyaan balaag meel waxay ka duubaan muuqaalo waxayna amraan inay lacag ay u keenaan dahabka ay ka soo xadaan guriga dhaqaale ay weydiistaan waalidkooda dabadeedna ayaka ay ku biilaan gabaray digtoonow muuji oo muuqaalkan dhamaantiin si shargaray si gabdhaha Soomaaliyeed fawjignaan iyo digtooni ay u muujiyaan أبو أكبر يا بس كده إلهي درتيس هي سيد بس